weerarkan oo la aaminsan yahay inuu yahay mid argagixiso ayaa galinkii dambe ee maanta lagu bartilmaameedsaday Dusit Hotel oo ku yaala xaafadda Westland ee magaalada Nairobi kaasoo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. warbaahinta gudaha ayaa ku warantay dhimashada hal qof iyo dhaawac intaasi ka badan hase ahaatee afhayeenka ciidamada booliska Kenya oo waraysi siinayay mid ka mid ah idaacadaha maxalliga ee Kenya ayaa sheegay in ciidamo fara badan loo daadguriyay goobta uu ka dhacay weerarku. sidoo kale Charles Owino afhayeenka ciidamada booliska Kenya waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamada la dagaalanka argagixisada loo daadguriyay hotelka uu weerarku ku dhacay si ay u sabadbaadiyaan dadka shacabka ee wali la aaminsan yahay inay ku sugadoonsan yihiin gudaha hotelkaasi. dhinaca kale afhayeenka militariga kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta gudaha Soomaaliya Cabdicasiis Abu Muscab oo waraysi siinayay wakaalada wararka Reuters ayaa sheegay inay ka dambeeyeen weerarka lagu qaaday Hotel Dusit ee ku yaala magaalada Nairobi isla markaana ay dib uga soo bandhigi doonaan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. weerarka argagixisay ee ka dhacay bartamaha magaalada Nairobi ee caasimadda dalkani Kenya ayaa imaanaya iyadoo guud ahaan dalkani Kenya laga xusayo 3 sano guuradii ka soo wareegatay markii kooxda al-shabaab ay weerar ku qaadeen deegaanka Ceelcadde ee gobolka Gedo halkaas oo ay la sheegay inay ku dileen tiro fara badan oo ka tirsan ciidamada dalkani Kenya. Kapaki wapo kando ilikuwa tint na imekuwa ikikuja. Sasa venye iliingia tu hivi tulisikia boom kitu kama bomb immediately, then risasi. Sasa watu walilala chini. Sasa mtu hatujui nini inaendelea huko ndani. Kuna jamaa aitwa Kewana anambia amepiga